asalaamu calaykum subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subax raadiyaha mustaqbal qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xukuumadda soomaaliya oo 5 milyan oo doolar ugu diyaarisay kahortaga faafidda caabuqa coronavirus waxaana ay amartay in la fasaxo goobaha waxbarashada muddo 15 cisho ah. waxaan caawa halkan shacabka Soomaaliyeed u sheegaynaa in la xiro iskuulada iyo jaamacadaha laga bilaabo maalinta berri ah oo ay xirnaadaan 15 maalmood kadibna ay ka sugaan warbixin dheeraad ah dowladda Soomaaliya oo ku dhaqaaqaysa dhaqangelinta amarka lagu joojinayo duulimaadida caalamiga ee Muqdisho yimaadeen kana baxa wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda Soomaaliya oo masaajidada faray in la qunuudo salaada inta lagu guda jiro. marka waxaan rabnaa wasaaradda inay talooyin soo jeediso talooyinkaas shacabka la wadaago waxaa ka mid ah in Allah subhanahu wa ta'ala xaqiisa loo ordo fafirru ila Allah ciwaankeena maanta waxaa waaye fafirru ila Allah. nabad sugidda Puntland oo howlgal qorsheysan ku galay guriyo ku yaala magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari taliyaha ciidanka xoogga dalka oo ku sugan Baydhabo waxa uu ka warbixiyay howlgallada ciidanka dawladda ay ka wadaan deegaanada Koonfur Galbeed. adeer ma ahan gobolka Shabeellaha Hoose kaliya guud ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sida la socotaba gobolada dalka meelo kala duwan oo howlgallo ka wadiya howlgalladaasuna boqolkiiba 90 waxaan dhihi karnaa si guul ah ayay ku dhamaadeen ama ku socdaanba kuwa kamid ah waxaan rajaynayaa insha Allah tacaala howlgalladaas inay sii socon doonaan. xiriirada Yurub iyo Ameerika oo ku dhawaaqay in sanadkan guud ahaan in aan la qaban doonin Koob Ameerika iyo Euro 2020 dibna loo dhigay sanadka soo socda iyo Kenya oo la safatay Masar xilli colaad ay kala dhaxaysay Itoobiya. master xogside maxaa cusub adeega dhambaal ee Hormuud Telecom oo muxuu ahaa waa fariisida ku fududeynaya inaad fariintaadii oo cod ah aad dirto gartay macaamil kasta oo Hormuud sita wuu dirsan karaa fariinta waana loo soo diri karaa oo sideen u dirsan karaa garaac 133 kadibna raaci nambarka aad u direysay fariinta codka ah adigoo ku bilaabaya 6 hal haddii aad dhageysanaysana garaac 134 dhambaal waa fududeeyaha fariin codeedka. markale subax wanaagsan waa Arbaco taariikhdu ay tahay 23 bisha 7 Rajab 1441 Hijriya dhanka kale 18 bisha 3 Maarso 2020 markana qodobadaas oo faahfaahsan. xukuumadda Soomaaliya ayaa 5 milyan oo doolar waxay u diyaarisay kahortaga faafidda coronavirus waxaana ay amartay in la fasaxo goobaha waxbarashada dalka. xubno uu ka mid yahay wasiirka koowaad ee xukuumadda Soomaaliya ayaa tegay xarun caafimaad oo loogu talagalay in la geeyo dadka looga shakiyo caabuqa coronavirus iyo in lagu daaweeyo haddii ay dhacdo in uu dad soo rito. Yaxya Maxamuud Maxamed ayaa warkan dhamaystiraya. ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya oo kormeeray xarun loogu talagalay in lagu hayo dadka loogu shakiyo caabuqa coronavirus si daawooyin ay ugu helaan ayaa waxa uu ka hadlay dadaalada ay wado dowladda Soomaaliya. Kheyra waxa uu sheegay in xukuumadda ay bixinayso lacag dhan 5 milyan oo doolar si wax loogu qabto kahortaga caabuqa corona oo kiis ka mid ah lagu arkay qof ka sugan Muqdisho kana yimid mid ka mid ah dalalka uu ka dilaacay. ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya waxa uu sheegay in ganacsatada uu kala hadlay saameynta taban ee uu ku yeelan karo ololaha loogu hortagayo caabuqa maadaama duulimaadyada caalamiga la joojiyay. wasiirka koowaad ee xukuumadda Soomaaliya waxa uu amray in la xiro goobaha waxbarashada sida dugsiyada iyo jaamacadaha muddo dhan 15 cisho oo ka bilaabanaysa maanta Arbaca kuna beegan taariikhda 18 Maarso. si marka aan uga hortagno cudurkan waxaan caawa halkan shacabka Soomaaliyeed u sheegaynaa in la xiro iskuulada iyo jaamacadaha laga bilaabo maalinta berri ah oo ay xirnaadaan 15 maalmood kadibna ay ka sugaan warbixin dheeraad ah dowladda Soomaaliyeed. sidoo kale waxaan soo jeedinaynaa in la joojiyo dhammaan kulamada waaweyn xafladaha iyo isku soo baxyada fagaarayaasha si looga hortago cudurkan foojignaantana aan u xoojino. dowladdu waxay kala shaqaynaysaa arrinkan dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada si aan u muujino wax ka qabadka cudurkan. waxay xukuumaddu maantay meel gaar ah dhigtay 5 milyan oo doolar oo ah lacagtii ugu horeysay oo u qoondeyno oo lagula tacaali doono cudurkan. lacagtaas waxa uu qaban doonaa qof walba oo Soomaaliyeed oo dhibaato ka soo gaarta cudurkan meel walba oo ay dalka ka joogaan haddii Ilaahay yiraahdo. sidoo kale waxaan wada hadallo kula jirnaa hay'adaha dhaqaalaha adduunka
si aan uga helno caawinaadii looga hortegi lahaa cudurkan dalka Soomaaliyeed oo dhan. Waxaa kaloon sidoo kale la fariisanay oo aan talooyin isweydaarsanay ganacsatada Soomaaliyeed sidii iyadana aan u xaqiijin lahayn saameynta cudurkani uu ku yeelan karo dhaqaalaha oo aan uga hortegi lahayn. Ra'iisul Wasaaraha ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay diyaarisay xarumo loogu talagalay in lagu hayo dadka isla markaana ay ugu magac dareen goobaha badqabka ee lagu hayn karo dadka lagu karantiilo ama laga shakiyo in cudurka ay qabaan. Shacabka Soomaaliyeed waxay u soo jeediyeen inay u dhagan nuglaadaan amarada ka soo baxaya hay'adaha caafimaadka dowladda si uusan bulshada ugu faafin caabuqan. ilaa hadda waxaan rajaynaynaa inaan sameeyno ugu yaraan 2 ama 3 xarumood. sidoo kale waxaan rajaynaynaa in isbitaal Martini aan si gaar ah uga dhigno meeshii lagu daaweyn lahaa bukaamada. waxaa ku socota shaqo qalabayn iyo maalgelin si uu ula tacaali karo isbitaalkaas dhibaatooyinka ka iman kara cudurkaas. haddaba si aan ula tacaalino xaaladaha ka dhalan kara cudurkan loogana hortago waxaan ka codsanayaa shacabka Soomaaliyeed dhammaan meel walba ay joogaan inay raacaan talooyinka ay bixinayso wasaaradda caafimaadka iyo hay'adaha dawladda ee hawshan ku howlan. Soomaaliya waxaa maalin ka hor loogu dhawaaqay in laga helay kiis ka mid ah caabuqa corona kadib markii laga helay qof hore loogu shakiyay kuna karantiilnaa magaalada Muqdisho kadib markii uu ka yimid dal ka mid ah wadamada ugu saameynta ku yeeshay coronavirus. dhinaca kale dowladda Soomaaliya waxay maanta dhaqangelinaysaa amarka lagu joojinayo duulimaadyada caalamiga. waqtiga ay qabatay wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda Soomaaliya ayaa ku eg caawa 12 saq dhexe kadib markii wasaaraddu ay sheegtay in muddo la joojiyay duulimaadyada caalamiga ee ka soo dega garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. maamulka shirkadda Turkish Airlines ayaa shalay qaatay go'aan ah in muddo 15 cisho ay joojiyeen duulimaadyada. diyaaradda ayaa safarkii ugu dambeysay waxay shalay kaga ambabaxday magaalada Muqdisho. wasaaradda diinta iyo awqaafta xukuumadda Soomaaliya ayaa dhanka kale imaamyada masaajidada fartay in salaadaha lagu dhex daro qunuud. sidoo kalena waxa ay wasaaraddu soo saartay ilaa 6 qodob oo ay sheegtay in bulshada Soomaaliyeed looga baahan yahay in ay sameeyaan si looga gaashaanto caabuqa corona. marka waxaan rabnaa wasaaradda inay talooyin soo jeediso, talooyinkaas shacabka la wadaagto. kow waxaa ka mid ah in Allah subxaanahu wa tacaala xaggiisa loo ordo. fafiruu ila allah ciwaankeena maanta waxaa waaye fafiruu ila allah. qur-aankiisa la akhristo, ilaah xaggiisa loo dhowaado, dambi dhaaf la weydiisto. wax kastana qur-aankay ku jiraan. wanunazilu min alqur'aani maa huwa shifaaءun waraxmatun lilmu'miniin. 2 in laga feejignaado qaab kastoo loo qaadi karo cudurkan halistaa. meelaha dadka ay tegayaan inta badan oo yacni xeebaha ha u badnaadaan meelaha dadka iskugu imaanayaan lagu ciyaaray iyo xoogaa tajamucaas xoogaa yar inuu yaraado. 3 in la ilaaliyo nadaafadda guud, tan jirka iyo tan deegaanka bay'ada in la ilaaliyo laftigeeda. xadiiskana rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu ahaa annadaafatu nisfu min al-iimaan. marka taasna nadaafadda jirka in la ilaaliyo, gacmaha si fiican loo dhaqo. waaba muslimiinta inta badan 5 waqti way isqaataan, yani sida dadka oo kale ma marka laga soo baxo suuliga waa dadka gacmaha iska dhaqaan, waa la weyse qaataa fajarka, duhurka, casar iyo maqribka iyo salaada cishaha. intoodaba dadka 5 waqti way isqaataa. alxamdulilah rabbil caalamiin. marka waxaan rajeynayaa nadaafadaas in saas loo ilaaliyo. 4 in la raaco talooyinka khubarada caafimaadka ay soo jeedinayaan iyo wasaaradda caafimaadka iyo guud ahaan madaxda qaranka. madaxweynaha xalay talada uu soo jeediyey madaxweyne maxamed abdullaahi farmaajo in la qaato. dadka muwaadiniinta ah ee dibadda nooga imaanayo inay meeshooda ay ku sugnaadaan, ay ku nagaadaan. dadka muwaadiniinteena gudaha ayagana noo joogay sidoo kale inaysan
ayagana dibadda aadan. waa qodobadii ka soo baxay wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda soomaaliya. warka subax raadiyaha mustaqbal 89.7 megahertz iyo Facebook live ayaad nagala socotaan. taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ka warbixiyey howlgallo ciidamada dowladda ay ka wadaan deegaano ka tirsan koonfur galbeed Soomaaliya. odawa uu tagay magaalada Baydhabo ayaa warbaahinta la hadlay. waxa uu sheegay in ujeedka howlgalka ka socda qaybo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose inuu yahay sidii al-shabaab looga saari lahaa deegaanada ay ku sugan yihiin. Yaxya Maxamuud Maxamed ayaa warkan dhameystiray. taliyaha ciidanka xoogga dalka jenaraal Ismaaciil Yuusuf Raage odawa oo gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ee maamulka koonfur galbeed ayaa wuxuu ka warbixiyay howlgallada ciidanka xoogga dalka ee ka wadaan qaybo ka mid ah maamulkaas. taliyaha oo shalay tagay halkaas soo dhaweyn kala kulmay taliyaha qaybta 6aad ee ciidanka xoogga dalka jenaraal Maxamed Sheekh Cabdullaahi iyo saraakiil ka tirsan xoogga dalka ayaa waxa uu sheegay in ciidamada xoogga ee ku sugan gobolada Shabeellada Hoose, Baay iyo Bakool ay wadaan howlo dardargelin ah. jenaraal odawa Yuusuf Raage waxa uu sheegay in howlgalladan kaliya aysan ku koobnayn qaybo ka mid ah koonfur galbeed balse guud ahaan gobolada dalka laga wado. waxa uu sheegay inay tahay sidii ciidamadan ay guud ahaan gacanta uga dhigi lahaayeen gobolka Shabeellada Hoose iyo deegaanada kale ee gacanta maamulka koonfur galbeed ka maqan. adeer ma ahan gobolka Shabeellaha Hoose kaliya guud ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sida la socotaba gobolada dalka meelo kala duwan oo howlgallo ka wadiya. howlgalladaasuna 90% waxaan dhihi karnaa si guul ayay ku dhamaadeen ama ku socdaanba kuwa kamiduhu. waxaan rajaynayaa insha Allah taala howlgalladaas inay sii socon doonaan. waxyaabaha aan rajaynaynana waa nimankan ummadda Soomaaliyeed u diiday nabadii iyo noloshii u diiday in muxuu ahaa sheegay laga dulqaado ummadda si qof walba Soomaaliyeed ay gurigeeda ay nabad ugu noolaato muxuu ahaa sheegay beerahoodana ay ugu tabcadaan si xur ah ay ugu tabcadaan. marka dabcan waxaan isleeyahay waa Shabeellaha Hoose kuwa ka socda guud ahaan gobolada howlgallada ka socda qayb ka mid ah. qaybo ka mid ah gobolka Shabeellada Hoose waxaa ka socda howlgallo waxaana xusid mudan in maamulka Hirshabeelle ay ciidanka xoogga iyo taliskooda bay ku eedeeyeen in howlgalladaas aysan ka socon Shabeellada Dhexe oo kaliya lagu koobay kan hoose. nabad sugidda Puntland ayaa howlgal qorsheysan waxa ay ku gashay guryo ku yaala magaalada Boosaaso xarunta gobolka Bari. waa habeenkii labaad ee ciidanka nabad sugidda dowlad goboleedka Puntland oo ay howlgal qorsheysan ka sameynayaan xaafado ku yaala magaalada Boosaaso xarunta gobolka Bari. nabad sugiddu waxay tilmaamtay in ay bartilmaameysan doonto xubno ka tirsan al-shabaab iyo Daacish oo kordhiyay weerarada ay ka geysanayaan magaalada Boosaaso xarunta ganacsiga dowlad goboleedka Puntland. saraakiisha howlgalka hogaaminaysa waxay sheegeen in ay soo qabqabteen dad badan oo ay la xiriirinayaan in ay ka tirsan yihiin al-shabaab iyo Daacish oo dhulka buuraleyda gobolka Bari ku sugan. halkani waa Mustaqbal Radio 89.7 FM. dhammaan wararkeena waxay leeyihiin muuqaal, maqal iyo qoraal. dhegayso wararkeena 7:00 subax waliba, 2:00 galab waliba iyo 7:00 habeen waliba. wararka dalka iyo kuwa caalamka waxaa kaaga filan oo kaliya inaad nagala socoto Mustaqbal Radio 89.7 FM ama aad booqato mustaqbalradio.net. haddii kale ka daawo muuqaaladeena facebook.com/mustaqbalmedia. madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa dhigiisa Masar Cabdulcasiis Al-Siisi u sheegay in Kenya ay ku taageersan tahay mowqifka Masar ee muranka kala dhexeeya Itoobiya ee salka ku haya biyo xireenka Addis Ababa ay ka sameynayso webiga Nile. afayeen Al-Siisi u hadlay oo lagu magacaabo Basim Redi ayaa sheegay in madaxweynaha uu telefishinka ka helay dhigiisa Kenya taasi oo warkaas uu ku garab istaagaya xukuumadda Qaahira waxaana dhigiisa Kenya uu ka gudoomay garab istaag u muuqda in uu ka dhan yahay dowladda Itoobiya sida uu sheegay afayeenka. Kenyatta ayaa mowqifka Masar ku qeexay mid ku saleysan rabitaanka siyaasadda baxsan sida lagu sheegay bayaanka. xiisadda Masar iyo Itoobiya ayaa kasii dartay kadib markii Addis Ababa ay ka baaqatay wareegii ugu dambeeyey ee wadahadalka 26 February sanadkan waxaana lagu qabtay kulankaasi magaalada Washington. waxaana xukuumadda Itoobiya ay sheegtay in Mareykanka uusan dhexdhexaad ka ahayn wadahadalka labadan dowladood islamarkaana dhinac ka mid ah dhinacyada muransan uu xaglinayo.
ugu dambeynna xiriirada maraykanka iyo yurub ayaa go-aano ka dhan ah martigelinta koobabka xulalka koob america iyo euro 2020 qaatay waxaana ay dib u dhigeen ilaa iyo sanadka dambe sababta ay go-aankaas u qaateen waxa ay ku sheegeen in caabuqa coronavirus uu dhibaato ba-an dunida inteeda kale u geystay waxaana ay soo jeediyeen in sanadka dambe 2021 la qabto koobabkan ayaa muddo dhowr sano kadib mar la qabtaa waxaana sanadkan ciyaaraha badi ay u baaqdeen caabuqa coronavirus oo dalal badan oo dhaca qaaradaha kala duwan ee adduunka saameyn taban uu ku yeeshay yurub ayaa lagu sheegay in uu noqday xudunta caabuqa coronavirus kadib markii warbixin ay soo saartay hay-adda caafimaadka qaramada midoobe u qaabilsan ee loo soo gaabiyo hu ay sheegtay in caabuqa intiisa badan uu gaaray dalalka dhaca qaaradda yurub warkii subax raadiyaha mustaqbal waa nagita net ama facebook.com/mustaqbal media mustaqbal u warbaahin wax dhis